madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu mareegto madaxweyne oo maanta soo saaray ku sameeyay xilka qaadis iyo magacaabid xubno kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland waxaana u dhignayd wareegtada madaxweyne ujeedo xilka qaadis ku socota Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda ku socota Cabdiraxiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibiin wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ku socota Cismaan Aadan Jaamac wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ku socota Xuseen Ibraahim Xasan Buuni wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ku Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ay sunnihiisa tahay in uu meerto noqdo oo loo igmado hadba cidii hanan karta sidaas daraadeed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalka aad hayseen ee kor ku xusan waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilalka qaranka iyadoo wareegtadu sii socotana waxa lagu yiri ujeedo magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markaan arkay aqoonta kartida iyo waaya-aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkani markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyadahan u magacaabo Xasan Maxamed Cali Gaafadhi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Ahmed Maxamed Diiriye Cige wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Siciid Sulub Maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Salabaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Mustafa Maxamed Cali Bile wasiirka wasaaradda cadaaladda Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Mahdi Cabdilaahi Cismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka wareegtada waxa ku saxan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka cable Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida